ساس وريقيا ووالين هو مركو والان جري بالغارياهو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم وكيله. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. حسبنا الله ونعم وكيله. الله لا إله إلا هو حي القيوم. سبحان الله. أني سعدي واكو أركاين الشرفي وسيدي النوع عادة أهيد inaan waxyaabo wadan keenay anagu halkan hadal baan u fadhinaay aan afkayaga aan maartay gaarsiino wixii fikirkeenu yahay dhamaan ummadda islaamka iyo Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan baan idin salaamay salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh maxaafid iyo mucaarad waa idin salaamay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh inta garatay midnimada iyo wanaaga ay leedahay iyo maashi xaaladda wadankeenu maanta jooga inta garatay ilaahay ha u saa'idiyo inta aan garan Allah garansiyo waxa way mid garta iyo mid aan garan waa dad isku doon saaran baanahay marka halkan ciwaanada aan ku soo qoray aadan cul joog inaad waan ku salaamay waa idin salaamay marka waxyaabaha marka halkan aan ku soo qoray waxay ahayd waxaan arkay media ka arkay in badan oo madaxweynaha eed loo jeedinayo arinta balad ku saabsan magacyo loo bixiyay maxay ahayto iyo maartay waxaan kaloo ka hadli rabay inaan qaraxyadii inta dawladdan jirtay dhacay qaraxyadii dhacayay intii qaraxoo dhacday ma jirtaa mid lala helay targetkii lala maaganaa meelihii lala maaganaa ma lala haleelay oo ma lagu guulaystay inaan lagu guulaysanse maxaa sababay marka arrimahaas aan rabay inaan wax ka taataabto waa marka koowaad horta eedda madaxweynaha loo jeedinayo waxaan qabaa in ay kaliftay dawlad la'aantii nagu raagtay muddada dheer macnaha na dilatay oo nagu daba dheeraatay inay macnaha dadka ay isaga darsan tahay nidaamkii iyo wada macnaha nidaamkii shaqo macnaha kaalintii qof walba leeyahay inay maaragtay dadka kala garan la yihiin oo macnaha wax walba ay jaran leeyihiin oo nidaamka dawlad yahay oo dadku dawladana ay nidaam u shaqeeyaan madaxweynuhu role inuu leeyahay hay'ada role ay shaqadooda tahayna inay jirto hadda hay'adaha macnaha gudiga hay'ada maaragtay xuduudaha oo kale gudiga ama xuduudaha u qaabilsan Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha leenahay midda dibadda leenahay macnaha wuxuu markay alamtara soo dhaafaan de madaxweynaha markaas ay safarsanayn laakiin markii maxay ahayto dooro meel ka boodaba ama shimbir meel ka buubaba ama diq meel ka ciyaar hadii la yiraahdo madaxweynuhu muxuu u hadli waayay xogaa البحنمada inay nagu yaraatay baad mooday dawlad aqoon la'aantii baan haysaa taas ay iimaanaysa wax walba jaray leeyihiin dhulka Soomaaliya insha Allah ta'ala qof kasto Soomaaliya kan Soomaalida ugu aqal xun hataa ma qabo inuu aaminsan inuu qabo oo yeelayo calooshu shaqaysta waa nagu jiraa waa sax si kale wax isu tusay markaas meesha arintu tagaysa ama soo u fogaan kartana aan markaa ay soo u muuqan dan gaaban markaa u muuqato oo ay gacantooda uga baxay wadankooda ku gacan galinayaan in badan bay nagu jirtaa in badan oo hogaamiyaal noo abayna arintaas ama kufraha kula jira ama hore u soo galay marka anigu waxaan ka soo horjeedaa horta eedda madaxweynaha la saarayo oo maartay mar walba leeyahay muu hadlo muxuu hadlayaa hadal yar iyo hawl badan baa la yiri hadal hore anaga hadallo oo idinku hadlay qof walba hadalku muxuu soo kordhiyaa in qofku shaqada uu qabanayo uu yaqaana muhiim ah iyo meeshu ka abaarayo shaqadiisana nin yaqaano weey madaxweynuhu ilaahay ha karaama allahna xifdiyo wuuna wataa shaqadiisa macnaheedu ma aha inuu de u si albaabka taagnaado de wax qof maanta iska hadlay waxba qaban maayo intuu hadlay inuu wax qabtaa ka muhiimsan wuuna hayaa shaqadiisa shaqo uu ka seexdayna ma jirto nidaamka iyo wadanku hadda intuu jooga ama gaarayna cid kale hore uu soo gaarsiisay ma jirin maamul wanaagiisa iyo maaragtay daacadnimadiisa iyo hawlkarnimadiisa lagu soo gaaray meesha hadda aan taaganahay haddaan ka u kaadsanana meesha ka meel ka sareysa iyo meesha dirimku ahaabaan insha Allah ta'ala una gaarsiinaya de sugta samirna yeesha dawladuna nidaam bay u shaqeysaa wax kasto dhaca mataraan baa ka hadla hadii maanta maxay tahay Mareykanka lagu soo xadgudbo Trump waxa ugu horeeyay hay'ad baa ku shaqale wasiir baa ku shaqale qolo kale oo kaga haboon oo kaga aadan horta kaalintaas qoladaas marka ka hadlaysa first wixii madaxweynaha markii kaalintiisa laga maarmi waayo buu hadlay laakiin hadalka marka hore shaqada jaranjaradiisii qof walba jaranjaradiisa inuu u soo dhaafo oo macnaha qofkii meel walba ka shaqeynaya asagoo noqdo looma baahna dawladna saa uma shaqeyso fadlan marka horta كله هذا معارض هنا ده معارض أول بنا داول هاي إلهي ما يدين داوين كره
oo idinku maaragtay nabad iyo nolol naxdin bay idinka inku tahay iyo nabar ilaa moogta waxaan jaranjaradan fursadda halkaas marka waa saa u gafteen wey waa tareenka saa uga dhacdeen marka nabad iyo nolol intay nabarka ku tahay iyo naxdinta allah caafiyo oo dadkayga allah caafiyo haddaan allah caafimaad u qorina allah na dhaafiyo si fudud allah noo dhaafiyo waxaa intaasaa taasi waa eedda loo soo jeedinaya macnaha dadka eedaynaya madaxweynuhu shaqadan waa ogyahay kamana seexan kamana maarad hurdo isagaana idinkaga walwal badan culayska isaga saaran ciduu saaran yahay ma laha walwalka isaga saaran ciduu saaran yahay ma laha waana nin weliba dalkiisa wadaniya oo daacadu ah waa nin macnaha adduunyo kale iyo horumartay soo arkay oo ku soo dhaqmay oo macnaha ciil iyo masayr hayoo raba inuu meesha iyo meel ka sarreeya soomaaliya gaarsiiya jecel wey kuwa calfada oo u kaadsada allaha idinka dhigo idinkana soomaaliya si kale ilaa waa inaad calfo idinkaad iska daadinaya idinkii baan u kaadsanay marka taas waxaan odhan lahaa eedaynta madaxweynaha lagu eedaynayo muu hadla wixii dhacaba muu hadla hadal buusan ku lahayn hadduu hadal ku leeyahay isagaa hadlaya markuu hadalku munaasib ku yahay wuu hadlaa wuuna ka hadlaa waxa munaasabadiisu tahay iyo kaalinta looga baahan yahay laakiin kaalintiisa weli lama soo gaarina sugta ha hor dhicinine keligiis uma dowladda shaqaale uma ahane 100 qof baa shaqaysa dadka kale shaqadooda yaan laga cadimine naa marku soo invite garaya doodu joog maara loo waayay doodu joogay naa waan kugu daray maxaa ku haya waa anigaa kugu daray doodu joog gabar baa hadda hadalka u maaragta aad iyo aad maaragta runtii ugu xiise qabta doodu joog welcome to the macnaa waxaan malaynaya barnaamijka waad la socotaa barnaamijka soo lama socotid iikaadi balan geedka dhagaha gashta aan fiiriya warbarikaas islaan ilaahay warbarikaas lisayga daba geeb ku ka maqnaa ilaa adigu codku ka maqnaa doodu joogay codkaaga qarrac xarig saaxiib ma xarigayga hadlaysa xarigaaga waraaqan haa haye baldi xagee bay maanta ay saarnayd iga dabagee xageed maxay maanta xageed maana hataa soo galay ciwaanku wuxuu ku saabsan yahay wala 3 arrimood baan hadda ugu muhiimsanaa haye mid waxay ahayd eedda madaxweynaha lagu eedaynayo muxuu hadli waayay waa garta oo anigu aan taaganahay qof walba shaqo uu leeyahay shaqadiisa waqtigii la soo gaarana wuu hadlayaa loo kaadso kow waa garta arrinna waxay ku saabsan tahay qaraxyadii dowladdan intay maaragta ay jirtay dhacayay oo intii qarax la dhigay mid taargetkiisa lala helay ma ku jiraa waa may maxaase kalifay sabab ma garatay waa garta midda saddexaadna waa arrinta baled xaawo oo macnaha qof kasta oo soomaaliya kan u ximinayo u qaba inuu baled xaawo qolo gooniya degto dhulka soomaaliya waa isku mid wixii barbare naga qaylisiinayay ayaa kala rabaa qofka soomaaligaana inay baled xaawo ka qaylisiiso qof kastoo damiir ku jiro dhul kasta soomaaliyeed geesuu yahaba taaka kasta uu yahay iyo taaka kasta iyo meel kasta uu ku yaallo iyo macnaha meel kasta sayid kasta uu yahay waa isku mid soomaali baa iskale haddii lagu soo xadgudbo adna lagugu soo xadgudub lagu dayn mahayo waa sax ma garatay waa sax marka arrintu barnaamijka intaas ku saabsanaa marka adigaa lagaa rabaa hadda waxaad ka dhihi lahayd hadda soo dah 3 arrimood baad ii sheegtay haddii aan kala qaado oo sidaad u kala hormarisay aan u kala hormariyo waxaan jeclaa inaad soo hormarisay madaxweynuhu arrintan taagan muxuu uga hadlilaya soo ma haa iyo basically arrin kastaba markay wax dhacaan right away muxuu hadli waayaa macnaha sababahaas oo mar walba lagu eedeeyo aamusano iyo ma hadlayo iyo waxaas macnaha taasaan ka hadlay horta qof walba tabartiisu yuu dagaalamaa sax soomaaliya maantay qofkii caqliga wuu dareemi karaa ama maskaxdiisa u shaqaynayso dal maantay xoog uu haysto ama cudud uu haysto ama ciidan uu haysto ama nabadgelyo uu haysto waddan intuu kaga horto ku dagaalamaya inuusan haynin walba ogi maya afku wuxuu yidhi afku waa hiile laakiin fikirka iyo waxaad ka aaminsan tahay waa hadalku muxuu macnaheedu wuxuu yahay waxa adigu arrintan ka qabto meel tabar ku dhigtaba waa inaad muujisaa weye macnaheedu waa kuu soo wadaay dhegayso hadalka way buu leeyahay iska hadal looma baahna wuxuu weyga u leeyahay weygiisu waxa weeyaan madaxweynaha soomaaliya hadduu maanta hadlo
oo miiriyaha soo istaago oo yidhaahda kenya waa igu soo xadgudubtay dhulkaygii bayna jeexatay waana iga gardaran tahay laba dawladood baanu nahay waxaan kala qaadnaanu leenahay dagaalkay noo bilowdaa noo taagan waanu isu imaanaynaa diyaar baan inuu u dagaalano ma dagaalami karaa su-aal baan ku weydiiyey maya hadda anagu soomaali ahaan xilligan dagaal diyaar uma nihin mana dagaalami karo maya adaa ku weydiiyey maya ma soomaaliya ma iska dhicin kartaa kenya ilaa madaxweynuhu waa hal shaksiya soomaaliya kenya ma iska dhicin kartaa maya ma qaba xilligan in soomaaliya markaan ay ciidan ahaan iyo weli diyaar ay u tahay iyo hub ahaan iyo isku iyo maaragtay israacsanan ahaan iyo midnimo intaba ma qaba xilligan inay diyaar dagaal u tahay soomaaliya laakiin dagaalkeedu waa dagaal inuu diblomaasi wey dagaalkoodu waa dagaalamayaan si diblomaasi bayna ku dagaalamayaan oo sharciyeysan sheekadu waxa weeye waxay maraysaa ninkii tooreyda kugu taagay asagoo kaa gardaran oo kugu dhuftay inaad tiraahdo in adeero maxaad iigu dhufatay bal iga siib walaalaan nahaan wada hadalne ee soomaaliya awoodooda baan taaganta may waa sax ma fahanti may waxaa kaloon ku weydiina waxaan ka hadlayo oo macnaha manshigareyna waxay ahayd miyaysan dawladdu nidaam ay u shaqaysa lahayn wax kasta muqasab baa madaxweynuhu nadaamka laftirka maya nadaamkii kulama gaarin ereyga madaxweynaha muu hadla baan taaganaa weli nadaamka weli maanaan gaarin de waa sax madaxweyne baan kaala hadlayaa hadalkiisa madaxweynaha waxaan ku iri hadalkiisu intuu miiriyaha soo istaago inuu doodo ama dagaalamo ama qayliyo uma eka waktigeedna ma joogo tabarteed iyo xooggeedna ma hayo wuxuu xaq u leeyahay diblomaasiye inuu ku raadiyo iyo kenya maxaad iigu soo gudubtay iyo inuu dhiggiisa la hadlo inuu si hoose ola hadlo horta uu kasoo maaragtay muuse xayuuke iyo bayaan jamaali soo qaban doonaa asaga yes iyo no heshiis iyo heshiis la-aan dagaal iyo dagaal la-aan horta waxaa jirta marka hore inuu kenya la soo hadlo waa nin madaxweyne inuu media iyo facebooka sidanadoo kalenta soo istaaga bay waa dalbeelay waa la idiro meesha ma taallo waa sax ma fahante markuu dhiggiisa la hadlo oo uu madaxda la hadlo ee dawladda kenya sida dawladda yaqaano ola hadlo wuxuu kala soo noqdo baa annaga noo soo noqonaya waa in la sugaa iyo dawladdiisa iyo baarlamaankiisa iyo kula soo noqonaya iyo kula soo noqonaya taasoo ah ama quuso ama inaad gar hesho waa sax marka hadda soomaalida madaxweynaha hadalkooda u jiranoo muu hadloy haddaan u sheego horta iska hadal meesha ma taallo oo meesha madaxweynaha wuxuu ku hadlo meesha ma yaallaan sax weeye hadaluu ku hadlo meesha ma yaallaan iska hadal maahan horta ha soo daalo horta hala hadlo dawladda kenya wuxuu kala soo kulmanaya noo soo cesho laakiin media facebook ma ahan hadalkiisu dee dadkii baa miidiyaha inta ku waashay oo waxay u qabaan midii meel maaragtay shimbiro meel buruf hadday ka tira asagii baa hadal laga sugaayo dhibaatadaasaana haysata sababtood midda kale soo ma lihin hay-ado iyo dawlaya iyo wasaarado hawlahan ku shaqa leh oo maaragtay ayagu kow horta inay soo xaqiijiyaan waxa jira oo dhabtaa iyo waxay la dhaafi waayaan madaxweynaha yo u imaanaysaa waktigaas ilaa horta shaqada dad baa kale hortiidda soo dad ma laha dad baa kale horta waxaan ku sheegayaa dad baa kale steebkan inay qaadaan marka hore balad xaawo rag baa xukuma maamul goboleed bay leedahay madaxweyney leedahay madaxweyne magaca madaxweyne hadduu dad wax ka bedelayo ama muuqad u yeelayo ama shiksi uusan ahayn uu ka dhigahayo horta dawladda gobolka ee dalku sabongoliya jubbaland madaxweynu qaba soomaaliya oo soo shaqeeyey wakti badan ku soo shaqeeyey madaxweynenimo sooma jubbaland ba haye madaxweyney qabtaa baarlamaan bay qabtaa saraakiil bay qabtaa wasiiray qabtaa dadkan horta xukumay marka hore oo ka xigay madaxweynaha horta qaylaba kama soo yeerin horta ma gobolka jubbaland ahaan mise marka la yidhahdo xuduudaha jubbaland waa gobol soomaaliya ka mid ah laakiin markay xuduud noqoto iyagoo xataa meeshii dadkii dee degan yihiin waa sax iyagoo qaylada inay bilaabayaan ba ay ahayd ayaga hadda aamuska yaa lagu galsan yahay ma ogiya horta sideedaba xuduudaha guddi baa u qaabilsanba dad baa u qaabilsan gooniya oo wasaaradda arrimaha gudahana hoos imaanaya wixii arrimahan oo kale wasaaradda arrimaha gudaha tii dibadda maxay too kuwaasa horta ku shaqa leh wallaahi iyo gobolkii ay ku taallaba haddaa intaan gurigaaga kuugu soo galo aan dab ku dhajiyo
oo tiraahdo guriga nin lan looraan ka kiraysto asagii baan sugaya intuu gurigan dabka ka daminayo ama iga qabanayo qofka kana horta caqli ma noqonayso maya caqli taasi waa runtahay maahan horta dadkii waaba u jeedaayo dadkii reer madaxa inay dhagaxaanta gurteen horta dadkii maasha allah meesha u dhashay way kaceen oo ma fadhiyaan taas waa shacab walaalay taas waa shacab taas walaalay waa shacabka yaanaan ku soo daahina horta waxa weeye madaxweynaha shaqadiisu waxay tahay dagaal iyo media maahana shaqadiisa waa diblomaasi waana ku maqaya waana ka soo jawaabay already dad baana loo soo diraya madaxweynayaashan rabnaa inaan dadka u bayaamino in macnaha madaxweynuhu wax walba rool iyo waqti iyo limit ay leeyihiin uu ku hadlo iyo waqti xaaladan isaga ay qusaysay iyo xalli waqti looga horeeyo xilligii looga horreynayay baa lagu jiraa si macnaha waxaa lagu dagaalamayaa diblomaasiyada soomaaliya maanta maaragtay shimbirtii dhaqaaqdaba madaxweynuhu kama hadlayo waxay markay xilligeeda la soo gaaro oo dadkii kale maaragta oo munaasibka ku lahaa inay arrintan galaan ama ka hadlaan ama hawlihii hay-adihii dawliga ahaa ku shaqo lahaa markay dee macnaha ama ay soo dhameeyaan ama ay soo dhaafto isaga markay u timaado xilligeeda hala sugo wuu hadlaa waqtiga looga baahan yahay oo ay isaga soo qabsato wuu hadlaa si fiican buuna uga hadlaa arrintii markaa qabsato markii meesha munaasibkiisa markay timaado weeye taa markaan halkaa uga baxno oo dadka aan ka wacyigelinayno eedan cidladaa in la iska daayaan oo bartaan nidaamka dawladda u shaqayso iyo waqtiga maaragta madaxweynuhu inuu hadla ay munaasib ku tahay iyo waqtiga aysan ku ahayn ee dadka kale oo asaga ka hooseeya ay shaqadan ay u taalo marka shaqo walbana asagu dee bitoni ilaa iyo madaxweyne shaqadaa ma qaban karo madaxweynuhu shaqadiisana ma ahan qof walba shaqadiisi baa loo dhiibay haddaan dawlad dad u baranay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare meel walba ayagu keligood ka shaqeeya dawladdana way ballaaran tahay nin walba shaqadii loo dhiibay buuna haystaa wasiirku shaqadiisu haystaa maxay tahay xogayuhu waa haystaa prime ministerku waa haystaa madaxweyne waa nin walba hawshiisii ilaa iyo bitoni nin walba shaqadiisu waa haystaa nidaamka dawladdaana sida ah marka taa halkaan uga baxno aan marka soo galla qaraxyadii ka dhacay dawladda maxay tahay soomaaliya muqdisho intii ay jirtay dawladdaani weli ma jiraa mase magacaabi kartaa qarax macnaha sidii meeshii lala doonaya lala helay inaa shacab lagu gumaaday ma ogiye maya ma jiro sidaan ka baranay macnaha dawladdii xasan shiikho macnaha qaraxyadii dadka la mishimo iyo mishanka loogu talagalay inta badan wuu fuli jiray oo meeshii loogu talagalay iyo ciddii loogu talagalay ba horta ku fuli jiray marka anigu waa u fiirsaday ilaa qadarkiis dawladdan intii qarax maleegadoo dhan shacabun baa ku dhammaaday wax dawladdii kusoo gaaray male iyo meelihii loogu talagalay taana anigu waxaan u nisbaynayaa waxaan u nisbaynayaa cadaaladnimada iyo ilaahay hortiisa macnaha ilaahay baa ilaa daalacanaya dadka laabahooda annagu ciddaa waa isnicabnaan karnaa waa isnici karnaa laakiin ilaahay baa waxba ka qarsoonayn waxaan u malaynayaa anigu aan ku qiyaasay in macnaha dawladdaasi dawlad daacada ay tahay tabar iyo wixii tabartooda ay tabar u waayaan waa meesheeda laakiin in ilaahay la ogyahay qalubtooda ay daacad tahay saasna ilaahay ula jiro marka ay dadkuna marka moor ay shacabku dhammaadaan waa moor shacabku sii madoobo shacabka unbaa sii midoobaya waxba kama nusqaabayaan wallahi waxaan ognahay dawladdii xasan sheikh inaan in ka badan 40 xildhibaan aan ku weynay ma fahanta nacam iyo dad badan oo qiimo wallahi waa lagu waayay xildhibaanadaas hadda hal sanay dawladdan jirtaa ilaa hadda hal xildhibaan ma aanan hataa ninkii al-shabaab waddanka ka saaro dhaga badan aawo dhaga badan janankii dhaga badan xildhibaanada koraad dhinacaas koraad bay wacaysa maxay bay idayso xildhibaanada markii la laynahayana waxaa la dhihi jiray xasan baa laynahaya iyo dawladdaa laynaysa ma fahanta maya wax shirqool u samaysan way u ekayd runta marka laga hadlo waxaan xasuustaa wiil soomaaliya xildhibaan ahaa oo u malaynaya inuu ma aqaano carab saalax weeye laygu yidhi waxaan xasuustaa waqtigii mooshinka laga keenaya saacid ayuu wuxuu yidhi war hala dhegaysto ninkan ra-iisul wasaaraha xukuumadda hadduu yidhi hala dhegaysto xaq buu leeyahay hala dhegaysto dacway waxay xasan sheekh madaxtooyada ugu tageen baa laygu yidhi 4 checkpointi buu sii maray markuu madaxweynaha intuu kula jiray baa baabuurka miino loogu xiray markuu checkpointi ugu dambeeya marayna waa ku qarax waa loogu taabtay marka ilaahay baa horta dadka ilaahay bay waxaan lala hortegi doonaa rabbiga raxmaanka waxba ka qarsoonayn qofka maanta wallahi ninkii laynahayay baa la qaatay hadeer oo la waardiyeynhayo cil iyo dhul la waardeynayo hal sanana hal qofna ka dhiman xildhibaan asxantu iyo waa la waardiyey iyo xildhibaanadii la layn jiray waa raysanay iyo nabadgelyaan heldhadhaaya ma arag ma faad horta ayagu ama ha dheheen ama horta yaysan dhihin
haddaysa afka ka dhihin kolley uurka waa ka ogyihiin hadday afka ka dhihinna macnaha waa xaqiraad qofka moogta ilaahay nimcada uu siiyo xaqiraya weeye moogta taana waa wuxuu ilaahay kula xisaabtamayo waaye waxaad nagu soo celisaa madluuci aan ka hadlaynay oo ahaa muxuu ahaa wixii ku xigay arrinta kale marka mawduuca saddexaad wuxuu ahaa arrintu waxay ahayd macnaha eedaynta madaxweynaha wax walba leeyahay muu hadlo taa waa ka baxnay midda kale waxay tahay macnaha qaraxyadii macnaha dowladdan intay jirta dhacday weli ma maqal mana aan arag taargetkii loogu talagalay mid ku qarxay ilaa shacab cidlada ku baabiyaan halkaas hadda waxay kaa tusaysaa gacanta birta ah oo lagu qabtay nabadgelyada oo wax yar iyo wadu hareen oo shaydaanka soo maleegaya cidduu raba ha ahaado ururku raba ha taageersanado qoladay rabta ha soo maleegto in uu gacantiisa uu sii dhammaanahayaan oo gacan lagu qabtay oo shaqo badan la qabtay oo wiilasha reerka oo ciidamada ah oo hubka sida iyo saraakiishu ay shaqo qabteen halka waxaad ka dareemaysaa in maalin walba marka ay ogaadaan meeshii loo diro inaysan gaari karin meel kale inay wax ku siiyaan dad masaakiina ku laayaan may way wallaahi aad bay horta u fashilmeen ilaahay baana horta amuuraha wata rabbi baa wata ilaahay baa dadkan kuwa ku soo duulaya kuwa wax maleegaya kuwa loo maleegaya horta ilaahay baa u dhexeeya rabbi baa u dhexeeya waxba ka qarsoon waxaan ku sheegayaa hinda cabdiyey soomaali weli ma macaan ragga soomaaliyeedna weli ma macaan runtana weli maysan arag gumaysigana ma dareemin maray dareemi doonaanna ma aqaan ma fahantay qaraxyada hadda dhacahayo oo dhowrka beriyo qulqulutada ka dhex jirto baarlamaanka iyo xukuumadda aad iskaga soo dablaalaabnay waxaan dhihi karnaa dadka isku haysta meesha ama dowladda ka soo horjeeda ama nabadgelyada diidan ayaa ka dambeeyaan dhihi karnaa waxaa la yidhi maxaa weydha iyo waxaas maxaa kulmiyey maamahaba ahayd maxaa kulmiyey maxaa qaraxyada iyo isla doontay khilaafka iskala mid dhigay marka waxaad arkaysaa mar kastoo khilaaf yar dhaco in qaraxa la badiyo si dowlad loo fashiliyo lagama fakarayo marka ummadda masaakiinta oo dhammaanaysa walla suma wallaahi ilaahay waa qafuur raxiim waana shadiid ciqaab maalin buu laga jawaabi doonaa oo ninka maanta aad meesha naf dhagaxa inuu wato oo shaydaan intuu la soo heshiiya hooyo inuu ku gablamiyo ama iyada ilmeheeda ku rajaysiyo maalba qarax soo dhiibaya horta waxa weeyaan nafsi baa meel ka iyo hooyooyinka masaakiinta carada ayaga nadiifina la buufinayo nafsi baa meel ka jira meel uu ka jira la isweydiin maahane nafsi baa meel ka jira ma ciiduu ka jira ma geeduhu ka jira ma derbiyadu ka jira ma hooyooyinku ka jira ma carruurtu ka jira ma ilmaha saqiirka la kufsanayu ka jira ma dhulka la eebsaday buu ka jira meel allaala meelu ka jira ma aqaana nafsi baa jira this is not something normal waxa weeyaan waxa kan wax normal qof dadkiisii iyo dadka masaakiinta hub u soo maleegahaya oo dad la luuqa oo la cod ah oo walaalkiis u soo maleegayo waxaan wax normal ma aha waa qayb sun ah oo la isku duray oo waa dad sumaysan baan dhihi karaa ma ahan qof damiir leh caaw qof kasta oo soomaaliya oo dhib kasta ii geystay oo walaalka day oo ehelkay dilay there is not way caaw aan bab isugu xiri kara ama inaan dilo oo gacanteeda ku dhinto aan jeclaan lahaa inaa idhaahdo allahumma najina wax ilaahay laga magan galo weeye doodu joog waa runta horta wax ilaahay laga magan galo weeye dadki waxaad moodaa cinqaabtii 30 sano ku socotay weli inaysan maaragtay ay safari kaba qodnafaan oo ay tahayba aysan dareeminba oo aysan ilaahay u noqonaynba wa cajiib weeye waxaan la yaabanahay waxaa hoggaanka qabtay meel walba haddaad aragto waxaa hoggaanka haya intii daalamiinta ahay ilaa qadarkiis marka dowladdan labadan nin oo dadkan dhowrka qof oo hadda nadiifka hoggaanka qabtay 2 bilyan oo waxaa ku xeeran warloorra ah oo dilaa ah oo dad dhacay oo wax dilay oo maaragtay dalka gadanaya oo burcada yaa ku meersan marka magacii bay la sitaan xildhibaankii bay yihiin golihii bay joogaan wasiirkii bay ku jiraan si la yeelo lama yaqaan ganacsatadooda horta al-shabaab u shaqaynaysana waa number 1 wax jinni gurtay weeyo iyaguna 3 meelood markii loo dhigo 3 meelood markii loo qaybiyo 2 meelood ama xildhibaanada ama dawladda waa dadkii warwar ka soo qayb galay oo dagaalada ku jira oo ummadda dhameeyay oo xaq qaba wardad ba hatta xaq qaba isgartay waqti qof ba horta xaq inta galay yiraahdo war heed xaq baad gashay bal hasii badsan soo qof ma yiraahdo ma walaal qofku hadduu xaq islaan galo oo dhiig islaan galo ma qaboobo mana soo dago inuu ku dhinto mooyaane ilaahu iimaanka nagu soo marka waxa weeye walaalay waxyadu marka waa yahay doodu jooga wadaan su'aal ku weydiiyo maxaad u malaynaysaa marka waa yahay haddii 4 qof oo nadiif ah oo islaam ah oo dhiig qabino
tuuga cunin oo inkaar ku dhacin xarbi ahal ka qayb galin oo nadiifa meeshan hadday maanta yimaadeen waxa ku meersan ay yihiin 70% dad noocaasa sidee baad u maranaysaa marka wax looga qaban karo waa su'aal والله وأدق تهاي إلهي وكاني كرا فجر وكاني كرا فرج وكاني كرا لكن وأدق تهاي بالكوز ماشان واحد طالع إن دعد واحد طالع ماشان أما كعني أما كعيدية طبعا واحد كتاجن تهاي أنا كرسي كصدقنا فريزن وأنا تلقي ضدك بكوي بسن واحد بلنا أنا أنت كذا بشقين كرو غرحين كرينا غرحين horta qofka bini aadanka kan maanta dhahayo kursiga ilaa aan ku fariistay waa shahiiday horta intuu noolaanayaa ballan qaaday waa kow waa balla yaabana war haddii ilaahay miyanu ilmo dhalin okay miyanu ubad dhalin oo ubadkiisa uusan doonaynin inay waddan xora ku noolaadaan si xora u noolaadaan miyuusan qofkaasi doonaynin calafkiisa abaayo ninka alla u geliyo farmaajo intaasoo sanuu sugahayay ma fahantay intaasoo sanuu sugayay 4 uu ninka leeyahay 6 bilood uu ka hayay iyo 4 uu hayay ninka leeyahay 5 uu almost uu hayay ninka leeyahay xasan intaasoo almost 10 sano ayuu sugahayay inuu maalin uu qabto inuu bal xoogaa yara meesha wax ka bedeli karo ma fahantay marka qof walba taankiisi waqtigiisa inuu iimaanku sugaa fiican allana waa u dhiibay sida iimaanka iyo xaq lahayd uu sugay ama ha samaad ama yuusan sabaanina xaq iyo iimaan iyo jid wanaagsan buu ku sugay horta caawadu waxaan ku hubaa oo ilaahay xaq hortiisa caawadu dhinto inuu xor yahay oo soo aakhirada jannadii tagayo adduunyada magac uga taganay hadduu caawa dhinto horta kow may garad sababta qofka bini aadanka bilis maxaa daa xirmaa duuqdo yiri qofka bini aadanka markuu nadiifna qabyaaladna ka yahay Soomaali isku si u jecel yahay horumarna la jecel yahay wadankiisana jecel yahay waa macnaha hogaanintaas looga baahan yahay caadil nacdaas looga baahan yahay ma fahamtay intii hogaan looga baahnaa buu ninkaas ku sifooysan yahay waa nin islaama waa nin macnaha hami sare leh oo macnaha caloosh shaqaysta iyo meel soka iyo laaluush waxaas ay qancin weeyeen waa nin hinday maanta waxaan galay line kowde haye line 77 la yiraahdaan maanta gala haye ninba wuxuu i weydiiyey su'aalahaas i weydiisoo kale ah maxaa madaxweynuhu la aamusan yahay iyo wax noocaas haye wiilkii intaan u jawaabayay oo su'aashii la hadlay oday weyn oo haddii aan qiyaasay da'diisaan 80 ka yarayn baa ka soo booday haye wuxuu yidhi war madaxweynaha gabadhu ka hadlayso muxuu ahaa iyo ra'iisul wasaare kuwee ahaayeen buu yidhi waa kow markaasaa intaan ugu jawaabay wiilku wuxuu yidhi da waa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hadda jira waa maxamed cabdullaahi farmaajo iyo khayre ka hadlaysaa haye acuudu billaahi min shar bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay baan kaa maangalay bi acuudu minigoo sabab maxaa iiga maangashay baan ku yidhi oo kugu sameeyey adduunka xagee kaga jirtaa maxaa loo oran waay wuxuu yidhi maanday anigu madaxweyne ma arag madaxweynena adigu si xun buu u caytama markaasaan ku yidhi oo kii horena waad caayayseen kanna waad caayaysaane kulla saaraba waa oo saasaad u wada caayaysaane xaggee baan aadaynaa baan idhi moogta haye wuxuu igu jawaabay naaheedha ninkii hore nin buu ahaabay bal ilaahay baan kugu dhaashay waa 80 jir ninkii hore nin buu ahaa buu yidhi ninkii hore kee nin ahaa xasan buu ka wadaa nin buu ahaa buu yidhi lala hadlo ama lala xisaabtami kara buu yidhi anigu corruptionka doonayo dhan baa jecel wixii corruption ma ogtahay haa waa reero corruption dadka corruptionka jecel horta sideedaba waxay jecel yihiin wixii corruptionka waxay heli jireen ma ogtahay hadday waayaan isnacdeen ma ogtahay horta maxaan ku yidhi adoo kale dalkiina dumiyey dadkooda daacada oo yimid lama raba marka absolute waxaan ku yidhi yaa 12 buris baa loo haystaa ilaahay baase naga wada kulligeed kan buriska haysta iyo kan loo haystaba ilaahay baa u dhexeeya dalki waxaa waxba ka qaadi maayaan daacaddaa shaqaynayso hogaaminaysa absolute dalka adoo kalea dumiyey baan ku yidhi ilaa haddana dumiska ku wade kolay adigu tagtay maqrib dumay baa tahay maqrib dhacay baa tahay qorrax dhacdaa tahay dadka dhalinyarada oo ku dhegaysanahayo waqtigooda iyo layfkooda ha kaga ciyaarin baan ku yidhi waa ayaxtag ee la reeb waa carowday raad xumo ha reebin baan ku yidhi raad xumo ha reebina afka suubsaan ku dhahay nin weyn baa tahay sax ma fahanta marka walaalay dadka sidaa waayeelka u hadlayaan ee wax araggiisa u hadlayaan ee dalkii Soomaaliya dadkii nabadgelyada ku soo caanamaalay ama wax ku soo bartay ama ku soo noolaaday ama wax ku soo dhalay ama ku soo ilmo dhaqday ama ku soo koray markay saa u hadlayaan ma kula tahay qof dhalinyaro oo he never tasted wadanka la sheegay ama waxba ka arkin inuu jeclaanayo wallaahi horta dadka
waa adag tahay oo dad badan buu wasaqaynaya laakiin runta marka laga hadlo dhalinyarada dadka dhalinyarada waa dadka ugu dhaqso waa inay wax bartaan ugu dhaqso macnaha si dhaqsaa wax u baran kara weeye ugu fudud weeye maxaa yeelay sida xumaanta ay u barteen iyo dhibaatada ayay dowladnimo wanaagga iyo nabadana u baran karaan waa u fududahay dhan walba waaridkiisa wax bara in la lumiyana waa u fududahay in la marin habaabiyana carruurta waa u fududahay in macnaha hagaagaan waa u fududahay hindoy qofka biniaadanka wax bara beecada uu ku dhex nool yahay wax ka bartaa dadka uu la nool yahay wax ka bartaa dadka ka waaweyn buu wax ka bartaa dadka taariikhanku wax ka bartaa dadkii wax laga baran lahaa waa dadkaas ayaga oo sida u hadlaya that's why ay dadku iskugu iimaan laayeen oo colaad u sii fogaanaysa oo qabyaalada uga sii daraysa oo qabiilka uga sii daraya oo dadku isu sii nacayaan oo balaayo la isu sii qarxinaya oo dadku isu sii laakiin dowladda waxbaan kuu sheegi dadka dhalinyarada baan kuu sheegay ma dadka qurbaha tagay mise dadka weli gudihi ku jiraan weligood ka bixin dadka gudaha weli ku jira waa laga yaabaa weli in macnaha fikirkaasi lagu caburin karo laakiin dadka dibadda yimid fikirkaa laguma caburin karo sababta waxay ogaadeen baan ku idhi horta cid u taqaan ree hebelo ayagu waxay sida isu yaqaanaan horta cid u taqaan waa waayeen maalinku kenya xuduudba kenya iyo etoobiya nala leh oo daris nala ah maalinku kenya soo galo ama etoobiya soo galo soomaali buu ka yahay taa waxay qofka baraysaa inuu su-aalo isweydiiyo awa ciddaad sheegan jirtay awa gobolkaad ku faani jirtay midna ma lahay laguma yaqaano qofkaasi wuxuu baran karaa oo macnaha qalbigiisa hadduusan dee xanuunsanayn maskaxdiisa uu ka shaqaysiin karaa cunugaas oo kale wuxuu ogaanayaa adduunka wuxuu ka yahay uu baranayaa wuxuu ka yahay afrikaan soomaali buuna ka yahay macsalaam cid intaa usii dhaafaysa maba jirtaba iyo cid macnaa intaa kadib kala jecelba ma jirto ma ogtahay marka taasi waxay ku baraysaa dad badan waxbay wax fahmeen in badan baa wax fahamtay haddaba kuwa dalka jooga laftigooda waxa wacyigaa wax fahamsiya kuwa dalka jooga waxa wax fahamsiya mataqaanaa macnaa event iyo circumstansiga hadda u yimaada xaaladda ayaa wax fahamsiiya markay musuq maasuq badan iyo maxay tahay dhibaato badan iyo dowlad la-aan ay soo arkeen markay dowlad iftiin heleen ma maqlaysaa oo ayagii keergaraynayso oo sportis u furayso oo qaar askar ka dhigtay oo qaar macallin ka dhigtay oo qaar xafiis fariisay oo qaar tababar u tahay dee inaadan naftu meesha u roon raacday may garatay macnaha taas macnaha dadka weli soomaaliya horta al-shabaab bay qaar dad badan weli ka baqaan runta markaan kuu sheego oo kalsooni dowladdii baan xoogaysan oo kalsoonidoodii baan macnaha weli la helin hadda inkastoo ay aad isu soo tarayso macnaha aysan sidii hore ahayn oo dowladda hadda aad dadku u taageersan yihiin oo dhalinyarada hadda aysan baqaynin jidka is soo dhigeen laakiin waaga hore waxaa laga baqayay qof al-shabaab bad hadda isku dirtay beri buu ku qabsanaya beri buu kaa goynaya taasaa laga baqi jiray ma garat qaar badanoo xitaa ganacsataa hostage bay weli ugu jiraan hindoy waxaan u malaynayaa kolay dad baad kala iska soo ifinti garan kartaa laakiin aniga arrinta balad xaawo ayaan jeclahay inaan wax yar kaala hadlo arrinta balad xaawo waxaan dhihi karaa anigu kolay balad xaawo waa la gatay ma fahanti waa la gatay laakiin su-aashu waxay tahay yaa gatay waxayna ku gowracan tahaan laqiyaa qof walbana uu garan karaa baddii soomaaliya la gatay bay ku gowracan tahay cabirka iyo jidka la hayo iyo meesha la marsiinahayaana ah in ujeeddada laga leeyahayna biriga iyadoo iyo baddaba in la isku wada qaato iyadoo ujeeddada ugu weyn tahay badda sidii lagu heli lahaa in biriga iyo baddu isla yeeshaan maaragtay qadka isla yeeshaan laakiin aan qadku kala kor marinin oo qadku aadiyo weeyaan reer balad horta waa runtaa ujeedka ka dambeeyo oo loo soo durgahaya ujeedka ka dambeeyo oo macnaha isalka ku haysaa waa baddii la gatay oo muranka la geliyo dacwada hadda soomaaliya ay ka dacwoonaysay oo baddaad inay soo ceshatay maadaama dowladdii xilligaa gadda aysan ahayn dowlad maaragta adduunka aqoonsan yahay oo laga gadan karo sharciyaysan aysan ahayn oo ay hadda fursad halkaa ka heleen qoladaani waxay rabtaa inay riixatay ilaa lacagtoodii baxday ciddii ka cuntana iyagaa yaqaan waagaa soo maahan taasi waxay waa runtaa waxa loo durkayo loo sii socdo ilaa baraxaawo dhinankaas in loogu sii dhaafo loo raadinayo waa baddii sidii maaragta loogu aadin lahaa si baddii lagu xalaalaysan lahaa warka ugu dambeeya waa halkaas absolutely waa sidaas marka waxa weeye walaale horta badda waxay dhulka maanta la qaatay wuxuu ku gowracan yahay waa badda waan ognahay qof walbana waan ogyahay dadka reer gado ama reer waamo dad aad iyo aad iyo aad u sharaf badan oo dad qabow oo xasaan qabow oo walaaltinimo leh
oo ehelnimo leh oo dhib yar oo in la xukumo iyo dowladnimo iyo kala dambayn jecel weeyaan waa dad dhib kastay u jeedaan ayagoo dadkoodii lalaynhaya ugu dulqaadanhaya in maalin laga bixi doono ay nabadgelyadu ka sharaf badan tahay in la iska feer ordo oo laisla dagaalamo sax wax kasta oo dhibaata iyo dhibta loo geysanaya iyo dhaawacyada aan u jeedno maalin kasta taagan waxay ugu dulqaataan ma qayliyaan ma mudahoraadaan meydkooda way xawashaan kii la jiito way ka aamusaan guri haddii la dhaco way iska aamusaan waxa weeyaan waxaasoo dhan waxay ugu ka jeclaysteen in ay helaan dal degan oo loo yaqaano Soomaaliya iyo madax sharaf leh inay madaxda sharafteeda dhowraan ayagoo og xaqa ay ku lahaayeen inaysan ka helinin daaminis waxay ku heleen sharaf weyn oo Soomaalida hadda dhibta ka taagan ama Muqdisho ama gobollo ka mid ah oo la kala fujin la yahay oo dawladdu ku mashquushay oo maalin walba is haysta oo taaku iga taabtay intuu iga taabtay ciid buu iga taabtay sida iyadoo laba kalar ah ama laba luqad ku kala hadlaan ayay kasto boqolkiiba boqol ka sharaf badan yihiin horta waa mahadsan tahay oo waa dad sharaf badan waa yihiin oo dad maaragtay wadaniyiina runtii waa yihiin oo maaragtay runtii maaragtay aad iyo aad mar walba muxaafida ayagoo weligood dawlad mucaaraday wallahi inaan arag dadka gobolkaa degan dad wax mucaarada ma ahan iyagoo wax mucaaradayaba ma arag mar walba diyaar muxaafid mar kasta muxaafid dad wax mucaarada walaalay ma ahan dad sharaf la weeyaan laakiin dadkii hogaamin lahaa ee ku fiicnaa ee garanaya Soomaalinimada ee xaqa garanayay ee walaaltinimada garanayay ee diirka iyo jirka Soomaalinimo ku beernaa ama wadaninimada ku beernayd ama ciidda dhadhankeeda ku beernayd horta rabbi ma salansiin inay madax u noqdaan walaal horta waqti waxa lagu jiraa iska imtixaan qiyaamo rabbaani ah lagu jiraa ma garatay waa sax xilliga macnaha qofka xuni ay hoggaanka qabanhayo oo maaragtay qofka runta sheegay lala yaabahayo oo runtii qofka runta sheegayna uu been loo xisaaban yahay beenlowguna run loo xisaaban yahay horta ku jirnaa ma garatay ilaahay si fudud oo macnaha ha noogu sakhiro ha nooga nabad saaro ilaahay maaragtay Soomaaliya qulubteeda Allah isu soo dumo waa sax ilaahay wanaaga Allah ku kulmiyay xaqa marka horta anigu waxaan u arkaa wadaadka halkaa xukumo oo Jubbaland xukumo iyo wixii kale oo la qaraabanahayayba inay sheekadan ay horta ka marreyn baan anigu aaminsanahay laftigeedu kula aaminsanahay ma garad waa gartay hase ahaatee xilliyadaas ma ahayn hadday xataa sameeyeen waa xilli ay weli ay dawlad Soomaaliyeed rasmi ah oo adduunka caalamku aqoonsan yahay aan lagu dhawaaqin bay ahayd ma garad sida badda muranka ugu jirtayna macnaha waa legal way macnaha uma yeelan karin waxba lagama gadan karin xilligaas waa lagu qabsan karaa waxyaabaha hadda fursadda noo siisa inaan ka dacwoonana waa ya qayb ka tahay oo fursad ka tahay ma garad marka isku soo wada duub Soomaali intay isku maqan tahay Soomaali maranay Soomaali maqanay isku maran madaashay weeye ma ogtahay macnaha waalkooda oo maran qolo kale u miistay baa la yiraahdaa horta Soomaalida ma ogtahay ayagoo koodi mariya qolo kale u miisaan isma ogayaal baa la yiraahdaa isma ogayaal weeye ma garad marka horta ilaahay inay isgartaan oo is ogaadaan horta Allah waafajiyo asaga waafajinta asaga iska leh absolutely dadaalkan ayagay saaran tahay absolutely maanta maxanaha barad xaawo waxa haystaahay hadii maanta loo daayo ku ekaan maayo waa soo durkaayaan reer barad xaawo xagee aadayaan xaga u soo durkaayaan Soomaali xagee u soo durkaayaan ma garatay hadda falfiir aqliga fiir saliimka hadda guriyihii meesha laga jabiyay soo un dhanka iyo hadda Soomaaliya ma sii aadayaan haade haddii maalinba geeb la soo wariso Soomaaliya halka degan waxa loo sii kaxaynaya waa dhanka gudaha Soomaaliya loo sii kaxaynaya marka kan gudaha joogo ama kan gaaska joogo maanta ka dhiidhii waaya asna gudaha loogu imaan waa tii la eeda waa isku mid waxba isma dheera maya waa saas walaale waxba isma dheera marka Soomaaliya ilaahay iimaanka ku soo celiyo marka waxa weeyaan horta waxa helay hadalkan ku dhameeyay waxa helay waxa dadka deegaanadaas degan oo masaakiinta oo nabadgelyada jecel oo laguna yaqaano fir isinja ula nabadgelyo iyo xasan qaboobi oo dadka ugu wanaagsan oo ugu degan oo ugu qabow oo ugu nabadgelyo jecel waligoodna nabadgelyada ku noolaa ay haayeen waxa helay walaalay dib nuuxiyaa la dhahaa dib nuuxow haddaad meesha fiirsan kartana fiirso maandhow ay ku anfacaysa haddaad maandhow iska tag cayda waa laga fiican yahay ma yahay iska cayda waxba lagu kala qaadi waaye
cid hadda caydi maarata darjo ku keentana la waayo cayda waa laga fiican yahay maana iska daa haddaad gabartay haddaa wiil tahay maya iska daa ha iska caytamaana waa cayayaanka saqiiradu ha iska caytamaana faraa ka qaade waxaan ku eri walaalay waxaa helay etoobiyaan baa helay etoobiyaan waxaa helay etoobiyaan la dhaqana oo etoobiya soo gumaysatay oo weliga ehelnimiyada wadaag dareemin oo weligiis naxariis aan arkin oo dil iyo xabsi ka soo dhergay oo xurjumayn iyo xumayn ka soo riday iyo birays iyo ciid in lagu rogo mooyaane wax kale aan arkin oo dadkiisoo ciid lagu rogi jiray arki jiray cidna aan ka naxaynin oo magaciisa la yidhaha qalbi madoobaa helay qalbi madoobaa helay ilaahayna waa ka dulqaadi karaa qalbi madoobe allaha ka dulqaado dadka soomaaliyeed ee jubbaland degan baan leenahay qalbi madoobe iyo dadka ka daba shaqeeya inta la shaqayso oo la nool oo ayagoo noocay yacni loo dhufaamay waxaa la dhahaa dhufaan orgiga ama ratiga markii inta dhibtiisa laga joogsamo la xaniyo bixiyo inta uu dhufaamay oo ama ree gadaa ama ree waama ah waxaan leenahay allaha ka qabto way dhufaaman yihiin inta hoos joogto asaga madaxda ama la ah ama ku xigta ama u taliyana waa in dhufaanan mar hadduu qofku dhufaanayo la xaniyo bixiyana horta waa natin ninka ragga haddii la xaniyo bixiyo waa orgi la xaniyo bixiyey ma fahante walaal horta maxay tahay ha ku sii fogaanin maya walaalay waxaad ogaataa hindoy figir gabar baanahay waxa maanta laga oohiyana waa gabar ma fahante gabar weeye waxa maanta ooyayso ba'ay leyle buulkeed laga gubay 10 ciyaalana jiidaysa soo maaha marka inaan marka cay ama xumaato kala jaxanjeexo jubbaland iyo waxa xukuma iyo waxa jooga horta ima qabato ma fahante haddaad is leedahay qabiil ahaan baad u cayaysaan qabiil ahaan uma caayahayo waan ognahay maxamed madoobe wuxuu kasoo jeedaa ogaadeen wuu kala reebay baasha la yidhaahdo waamo waxaa loogu yimid cawliyahan baa loogu yimid ma fahante cawliyahan wuu ka dhowray dhaqan iyo dagaaliba kismaayo wuu ka dhowray ma fahante weliba reer cabdiluu sii kala qaybiye 4 xaboo reer warfaayo soo kala reebay oo soo reebtay marka daaminis waa wax amxaara la dhaqan oo walaaltinimada garanaynin soomaalinimada garanaynin dhaqanna aan garanaynin etoobiyaankuuna ka jecel yahay qofka soomaaliga ah wuxuu ka jecel yahay kenyaanku ka jecel yahay soomaalinimo ma garay haddaa is leedahay qabiil buu yuu dad u laayay qabiil gaar cid umuusan laynin cid uu cafiye cid u daayay ma jirto ogaadeen meel kuma sheego ogaadeen waa kala tegey ogaadeen wuu isku diray nairobi maalba loo fadhiyaa gartooda cawliyahan waa ka guura goor barqa ah ma fahante marka walaal horta ha u malayn inaan qabiil ahaan anigu aan hadda u caayahayo marka balad xaawo iyo gadana lugihiisa wuxuu ku tagaa markuu cabirahayo beec meeshuu mari lahaa buu ku tegey soomaalida garan kamana hadlo salana wuxuu yidhi afkiisa wuxuu ku yidhi ayagaa u guuray u galay buu yidhi dalka ayagaa u galay oo guuray buu ku yidhi xataa nin madaxa markaa tahay yaa u guuray ku celi halkaa ku celi walaal ku celi maxaa tiri waxaa la yidhi markii su-aal laga weydiiyey wuxuu ku jawaabay reer balad xaawo ayagaa xaduudi dhaafay oo dhinaca kenya galay oo guriga ka dhistay hadda waxa halkaa ka cad asagoo inuu gatay laftigiisa heshiiska la galay wuxuu ku jawaabay nin madaxa weeyaan dadkiisa hadday khaldan yihiin xataa oo ay galeen ma ninkii dadkiisa saas dhihi lahaa amase waa ninkii dadkiisa iyo dadka labada way u kala saari lahaa oo kala bixin lahaa kuwiisa hadday khaldan yihiin cushan lahaa haddii laga gardaran yahayna gardarrada ka cun lahaa mase waa ninkii miirya inta la soo istaagi lahaa dhihi lahaa naagihii ilmaha halal daayo ayagaa ka iyo galay walaal wuxuusan u dhahayn baan kuu sheegay ninkan kenya u shaqeeya runta markaan ka hadalno runta marka laga hadlo weeye dadkan dhan waa for example waa wax etoobiya u shaqeeya wax kenya u shaqeeya wax meerseeda horjoogayaasha maamuladan gobollada maaragtay etoobiya kenya u kala shaqeeyaan oo u kala adeegaan marka ma ahan wax asaga ku cusub ma ahan wax asaga keligii ku ahna horta ma ahan waxaanse halkan kaloo wax uga soo jeedin laha anugu aan la yaabanaya kuwa baarlamaanka kenya ku jiro oo macnaha soomaalida ah oo soomaali kenyaanka ah hadday u malayaan iyagu soomaali waxay sharaf iyo magac ku leeyihiin iyo muunad oo ku soo baxeen waa soomaalida kale may garatay maanta haddii ayaga maaragtay lagu soo ay xadgudubka soomaalidooda walaalahooda lagu samaynay ay ka fiirsan waayaan oo ama iyaga xaduud loo kala xiray iyaga unbaa jeelka lagu xiranaya horta soomaali way socon wayna noolaan laakiin waxaan la yaabanahay inay ka raalli ka noqdaan baan diidanahay annagoo kenya hadday matalayaan iyo hadday qolka matalayaan soomaali waa soomaali ama kenya ku jir etoobiya ku jir qadarow wiilka khadra iyo khadar wuxuu yahayba waxaan kuu sheegayaa oo si fiican kuugu sheegaya maangaab adoo kale ahaa dalka iyo dadkaba iibsaday haddaad caqligaagu intaas yahay dalka soomaaliyeedna aad qabiil
dalka Soomaaliya qabiil uu maskaxda kaala weeyahay xawayaan baa tahay xawayaanna horta wixii lagala hadlay iska yar iska caytan ma fahantay kaadir cali haddaad laftigaada wixii caytama anigu waa ka tuuraya meesha cay looma soo gala anagoo waxba caayi mayno ma fahantay caayi mayo meeshan anaa isfurtay dadka ra'yigoodana lagu kala qaadanaya ma fahantay anagu qabiil ma caayayno anagu qabiil ma caayno personal baan caayna shakhsi baan caayna kara haddana meeshan qabiil laguma caayin qabiil waaba ka mamnuuc in la caayo sideedaba qabiil shiikh iyo shariif buu leeyahay qof fiican iyo qof fiican xun buu leeyahay maba mamnuuc qabiil la caayo laakiin shakhsi waa la cayin karaa asagaana cayda dalbaday because qofka hadduu kaalintii kasoo bixi waayo waa la iscaayay waana la iscaayay anna kaa wadanisani isu haysa laandheerahaaga kowdh meesha laangaab ku noqdada sheegi doonee anna kaa wadanisani adigana maxaarada iyo etoobiyaanka ad u fuushaa dhegayso waxaan ku yidhaha sakaa fuulaane nin markii horeba maxaar iyo etoobiyaan soo naagaysan jiro rag iyo dumarba u kala lahayn hadda inaan hadda la hadlo halka ha u dhicin waa ku baryayaa waxaan ku leeyahay hadalka ka bax walaalay ka bax waxaa ku mashquulin waxaan ku leeyahay qalbi madoobe wuu ku ciyaaray horta opportunity-gii xataa ogaadeen wuu ku ciyaaray opportunity-gii ogaadeen ama magacii ogaadeen ee magaca qabiilka ogaadeen markii la dhaho horta wuu ku ciyaaray ma fahantay second magacii Soomaaliyeedna wuu ku ciyaaray magacii daaroodna wuu ku ciyaaray wuxuu usan ku ciyaarinna ma jirto ummad islaami shalay 35 qof baa baddu soo caariday uu xabaalay odayaashii uu xabaalay ilmahoodii baa lafahoodii ka soo gurtay badda shalay soo caarisay horta xaq isma qariyo shalay bay soo caariyeen ma fahantay horta xaq isma qariyo kursigana waad ka degaysaa nin kalena berri furs ninkii maanta nin qabiil u raacowna aday ku taala kursiga ninna lama dhalan waa wareegto ninba maalin buu saaran yahay waxaa si fiican sharaf inaad ku saaran tahay markuu ninkaagu saaran yahay ninkaagu markuu saaran yahayna waxaa sharaf ka ah inaad ka leexiso wadada xuntan uusan wada xun kaaga tagin iyo taariikh xun hadduu qofku taariikh xun kaaga tago waa nolol xun taariikh xun laakiin qofku hadduu ka tago dadku waa run oo dadku inay horta dhamaraac noqdaan dhibaatadeeday leedahay sababtoo qofkana berri buu ka tegayaa ayaxtag eelna reeb inuu wax xun kaaga tagayo taariikh xunna waa laga fiican yahay sidaa daraaddeed ummadda Soomaaliyeed meelay joogaanba waxaan ku wacyigelinayaa horta qabyaaladdan iyo reer hebelka inay iska daayaan waxba keeni weyday waxba lagu keeni waa horumar lagu gaari waa qarnimo lagu heli waa maalin walba wata amxaara iyo Kenyaanoon maxay loo caga juglayn jiray oo hooskana ka baqi jirtay anaga hadda ay soo ganaan naga yeelayaan war waxaasna waa qabyaalad waxaan ahayn halkaan nama gaarsiin Soomaaliyeed war qabyaaladan iska daaya war caydan macnaha aan lahayn oo waxay hadda ku toorantaan la ogayo nacaybka qofeed shakhsiyad iska daaya war nacaybka qabiilka iska daaya shakhsi waad nici kartaan laakiin midda qoomiyadda iska daaya qabiil ha nicinine shakhsi naca shakhsigana ku naca wax lagu nici karo oo muuqda ku naca oo la wada arki karo la wada dareemi karo laakiin kii hore markay wanaagga sheeqaynaya haddaad ku nacdo horumarkii maxaad doonaysaa ama horumar haddaad nacdo maxaad doonaysaa dibidhac baad doonaysaa waxa weeyaan nabad haddaad wax ku nacdo nabadgelyo haddaad ku nacdo dee nabad la'aan baad doonaysaa qalbi madoobe walaalay qabiil ma matelo qabiilna ma aha qalbi madoobe waa shakhsi qalbi madoobaana la dhahaa qalbi madoobe horta qalbi shakhsi ma ahan hadduu qabiil leeyahay qabiilkiisu asxaan u samayn lahaa kiisana mid umuusan samaynin mid xigtaana mid soomaalinimana kumuusan shaqayn islaamnimana kuma shaqayn diinna kuma shaqayn horta anigu ninkaas waxaa dhahaa qalbi madoobe billahi calayk ninka hadda qabiil halkaa ugu jira ama ku caytamayaan xalaal calayk afkayga afaan ogaadeen ku caay ilaahay iguma tuso ma fahante ogaadeen waa dad sharaf leh culimo iyo caamaba leh oo magac dheer oo Soomaaliya meel kaga qoran ma fahante culimada ugu sarreysana ka dhalatay ila caayana qofkii aniga inaan caay afkay ka sugaayo adacilka robko laakiin waxaan ku sheegayaa hal shakhsi baan wax ka sheegaysa qofna waa la mucaadari kara xulma laga sheegi karaa qalbi madoobe meeshuu ku dambeeyeen isla ogaanayna qof biyo gurta alla nagama dhigo dadku xabaalay raggu xabaalayna ilmahoodu waa taagay taariikh xumadu ka tagayna kursigu markuu ka dago markuu kursiga ka tago wuxuu uga tagi lahaa kismaayo loo baahan yahay iyo ninkii nabadgelyo ku sii joogi lahaa ama ku sii deganaan lahaa ama fadhi lahaa agoomaha la agoontoobay ee aabayaashood badda lagu xabaalay ma mooga waxay ahayd heestii oo Ethiopia loo qaaday ma mooga nina dhiigisa ma mooga ma fahanti ilmihii waxaa dhooban aabayaashood daraad bay ahayd gabar xaamilo ah oo sagaalkeedii go'ay labada lugood xabad inta la isu mariyey naajasti istiqaadka balolze saaka koomay ugu jirtaa Kenya diyaaradii xataa waa loo diiday iyadoo la qarinayo marka daas ay ku sheegaysaa reer gada iyo reewaamo inay dad xushmad badan yihiin inay dad xishood badan yihiin in ceebtooda la ogaado inay neceb yihiin ma fahanti laakiin hadday meel fiican lahayd saacaday miiriya ugu jiri lahayn farti la gaarsiiyana usoo dhigi lahaayeen ma fahanti cidna kamay baqeen laakiin ayagu waxay ka jecel yihiin
inay helaan nabadgelyo iyo qaboobi iyo dal kala dambeeya laakiin hameen ilaahay keeno 5 iyo 6 baa lagu dila oo cid kasta leh jileer iyo jileecba leh waxa lagu kufsadaa tobaneeyo gabdhood cid kasta leh isnad wan qabiil isnad hal cid walba leh waa lagu dila ogaadeenka dhexdooda lagu dila harti dhexdeeda lagu dila cid kasta lagu dila jareer baa lagu dila hawiya lagu dila cid kasta gaajacel baa lagu dila cid lagu dil ma jirto marka ninkaasu taariikhdeebu ku tagaya seebuu ninku ka tago biro u noolaanaya seebuu ku degaanaya seebuu deegaanka xooga yeelanaya ma la isweydiiyo waa su'aalo u baahan sidaas in la isweydiiyo waa sax alaale macaan waxba yaana halkan ku dheeraan ku caytama waxaan ku dhihi lahaa reer balad xaaw caruuraha yaallayn waxa arkay laba naga balooga laba jaqjaq la hawa balooga baloog saqa jaamintu dhish waa ka dardaray qofku waxa la rabaa hadii lagu sheego ciida jooji la iska joojisid moogta maya waa baala xun ruufyaannima weeyaan iska daaye abbaay reer balad xaaw anigu waxaan dhihi lahaa anigu waxaan dhihi ruuxaantii maanta waxaan arkayay wiilal yar oo askar ah ciidamo ah oo soo kaxaysto oo xuduudda yimid ilmaha yaa la layn jareer adoon dalkeedii haysata oo hub haysata oo nabadgelyo haysata 30 sano qaadkii iyo daroogada ku soo gudbinaysay ana nafaqada u gudbinaysay kugu dul lacagaysatay yaan ilmaha looga yaa la iskaga dhameyn caruurtii ilmaha yaan caruurtii ilmaha laga daayay xabada maxaa ku soo haray dalka meeshii Soomaali ka galaysaani dhiiba dalka dhiiba nin kasta intuu ka soo gaaray gato Soomaali dalka hal la gato dalka nin walba gado nin walba ma dalka in la gado isku waartay anigan maanta kulahay waa waxa haaf ma soo gadanaya ana ku sheegay maya dalka horta had hooshi waa lagu hayaa hadda waa la hooshi hayaa annagu inaan gadanana oo hadda naloo gado waxaan ka cunana nalooba ogola nin baa jeebka wax yar loogu ridaya kaligiisa la tagaya iyagoo laba ama 3 ma garat groupka yar baa wadankii macna intii dadkii xaq u lahaa hawadii loo gado dalkaaga inta lagu gado wixii lagu gaday aad wax ku munaafacaad lahayd waxba kaaba dhinteen moogta absolutely marka dalka cid loo gadi mahaye dad baa iyagu raba inay kaligood xaraashtaan waxa weeye abaayo waran ku sheego Soomaali dalka waa wada gatay reer waqooyi waa gatay reer bari waa gatay reer Jubbaland waa gatay waxayna weydiiyay maxaa qolo kaliya wadani ka dhigay dhulka waardiyihiisa saaray ilaa iyo xootil qiyaamo farmaajo maanta waxa lagu ciirsanaya ama lagu dilaya ama lagu aflagaadaynaya hadhiin cadow dhulka ha qaadan ha taaban ha iga cunin ana iskale dadkayga igu daa ha burbursan shaqaale gaalaha ii keenin baa intaas lagu dilaya oo maanta cadowga in lagu hayn la qabto wadanina waa lagu haystaa wala beenna ma dawladda lagu haystaa oo lagu xanibaya oo lagu haystaa si aad u dhigi kartaa cadow joog jeeb uu leeyahay ma gashan xoolo leeyahay ma dhaqanin meel kuma shubanin si aad u dhigi kartaa cadow joog dhulkayga ha iga cunin ayuu maanta u dhimanaya marka wallahi beenta ma meeshan Soomaaliya qabiil la carbiyay dad Soomaaliyeed ba inta la carbiyay rag Soomaali ba inta la carbiyay ma oo aad loo carbiyay waliba aad loo carbiyay oo sida macnaha shisheeyaha iyo loogu adeegaa loo carbiyay moogta sax ma garad dadkaas waxa lagu soo dirayaa qofkii kale arki maysa daha gadaashiisa lagu joogaa moogta sax dhibaato taas weey marka kii wax kula lahaaba ila qolo kale u carbisay ya qalbi kale iyo nidaam kale iyo maskax kale iyo waxa saaran iyo dareen kale waa sax muqdisho maalin walba waxa qarxinahaya cirka rag ka soo dhacay maaha cirka rag ka soo dhacay maaha waa rag Soomaaliyeed oo muqdisho ku nool oo reer muqdisho ku nool oo shaati reer muqdisho ay qaba waa sax ma fahantay waa wiilashoodii waa siyaasigoodii waa beecmisharkoodii waxa ay sameynayaan ina ayagu jeebkooda kaliya u buuxo shacabkana they don't care wax ay shuqulo kaliya waxa maal walba laynaya cirka lagagama imaanin maalin kasta waxa ku dhimanayo ku miisay waxa hubka ilaahumma midka hubka loo xabada loo dhiibayo cid kala ahaado laakiin waxaano baabuur ah iyo milyaneerka iyo hubkan iyo waxa la soo dhiibay iyo gaariyaashan quruxda badan oo la qarxinayo cirka horta kama soo dhumuso dhexdooda ka soo dhabaxa si fiican beecmusharka iibiye waa run siyaasiga iibiye waa sax ma fahamtay qabiilada iibiye waxa alla lagu soo dhan oo baabuurta arkayso wax lagu qarxinayo oo jooga lacagtaad aragtay xageebu ka yim cirka kama soo dhicin si fiican ninbu magaciisa ku qoraya nin baa iskale hadda waxa weeyaan hurmud waa la gubay maalin walba la gubaya maxaa dhahaa telefoonadii bahaq la yidhahdo kabaniyadii gada waa laga gubay ujeedada loo gubayo waxay tahay
in kenya laanay leedahay inta la keeno la fariisiyo si aan siyaasadda ama dalka ama looga xukuminin soomaaliya oo loo helin furaha ayaa waxaa rabaa furo kale oo kenya laga xukumo soomaaliya bartankeed in laga taago bal ilaahay baan kugu dhaarshay meesha gumaysigu marahayo waxa hameen walba loo gubahayaa telefoonada iyo magiciisiga loo gubay loo qarxinaya waa inta anigu waxaan soo jeedin lahaa walaal dood jooga waxaan soo jeedin lahaa dowladda iyo xukuumadda iyo maaragtay ay farmaajo iyo khayr hogaaminay dowladdan ay hogaaminayaan ilaahay khayr ha siiyo xukuumaddooda maaragtay ciidankooda in lagu dalbado horta kuwa kolley oo kale wixii waxa idabta daran oo dhan meesha laga xaraaso oo gabigoodaba buul meel lagu xarayo wallahi billahi inta jeel loo sameeyo gabigoodaba jeel lagu aruusaan ugu qaba soomaaliya intay ka xasilayso oo cagaha ka dhiganayso oo laga xisaabtamayo oo al-shabaab laga nadiifinayo horta in la iska xiro sababta kuwaan aba al-shabaab kala ah dabal jaliil iyo al-shabaab waa saaxiibo waa kood isku xiran ganacsatadii bay haystaan siyaasiyiin bay haystaan xildhibaanadii waxay ku badan yihiin aqal waxay ku badan yihiin xildhibaanadii bay ku badan yihiin oo baarlamaanka kaa buuxaan waxa in la kala silsilo u baahan wallahi anigu hadda maanta waxaan oran lahaa madaxweyne gabagooda waxa kala diro cirka meesha aadaysa ha aadi abaayo al-shabaab qalbi madow waa la shaqaystaa ma kula tahay xamar muxuu la shaqaysaa yaa dhuxusha u soo guba oo yaa dhuxusha u soo guba maya amisom oo dhan asaga al-shabaab kenyaana kala qaybsadeen yes amisom oo dhan iyo soomaaliya oo dhan bay muqdisho isugu tagtay ciidankeedii iyo xooggeedii ilaa iyo haddana qaraxyadii waa la kontarooli layahay ma kula tahay kismaayo haddaan qalbi madoobe iyo asagu iyagu isla shaqaysanin ama aysan xiriir ka dhexaynin ama aan sheer ka dhexaynin ama aan dalka la wada gadanin ama aan xoolaha la wada dhoogsanin ama sheerka xoolaha la wada cunin inay kismaayood cidna waardeynin oo ethoobiyan iyo kenyaan xuni uu joogo asaga keliya waardeeya inay habeen nabadgelyo ku seexan lahayd adiga caqligaaga ma ogtaa waa sax al-shabaab buu la shaqaystaa al-shabaab buu la shaqaystaa wuu la shaqaystaa dhuxusha asagaa usoo iyagaaba usoo gubee asaga hadhowna kenya iyo asagaa kala goostay asagana qaybtiisa la siiyaa kenyan inteeda qaadataaye meeshan ganacsi waa soomaaliya ganacsi waxa weeye soomaaliya waa mashruuc weeye baylaa yiri mar hore ilaahay khayr ha siiyeeso dowladda xasan sheekh watuu iska casilo yiri soomaaliya waa mashruuc dad baa ku shaqaysanaya damiirna male dadkiina qabyaalada u raran yihiin oo dareemi maayo problemkana haysta waa taas dhibka noogu weynana haysta dadkan shacabka waa layska hor dhaqaajinaya shacabkii baa qabiil u daba taagan qofka dhibaatada dalka ku haya oo isaga iyo carruurtiisaba dhibaataynaya oo meesha xun dhigaya qabiil baa lagu daba taaganya laguna difaacaya marka dowladda hadda dhisan boqolkiiba 70 baba waaba aldabalshidid iyo al-shabaab iyagaaba ahba runta markaa rabtid marka xagee see looga baxaa weeye sidee looga baxaa haddii far la saaro shacabkiina barbaa uu qabyaalada ula go'ahayaan si la yeelo lama yaqaan wallahi dadkan mashaakil baa la qoorta u suray mashaakil baa la qoorta u suray waxa kaliya maanta fursadda kaliya furan waa inaan ciidamadeena xoojino ciidamada soomaaliyeed oo muwaadiniinta oo macnaha u tababaran haykal qarannimo oo qabiil aan u tababarnayn oo macnaha caqiido qaran la geliyey caqiido qaran macnaha lagu akhriyey oo caqiidadooda iyo dareenkooda iyo muhaymigooda uu yahay qarannimo wax ka sokeeya aan ku dhaqmayno oo nooca loo tababaray kaliya inaan xoojino aan Soomaali haddaan shacab nahay nadiinteena nadiifka aan isku dayno sababta si kale waxaan lagu qaban karo male in ciidan la helo maahan magaalada xabaab waxa weeyaan oo kala jooga hadda ciidan walaal horta Allah ka soo ciidan inta ogeedo farmaajo ciidan iyo khayr ay gelinayeen waqti waxay noqotay ciidankii xataa sug walaal wiil la yiraahdo Ibrahim Kaysi baa wuxuu soo qoray maam wuxuu yiri farmaajo iyo khayr maxay u hadli waayeen muwaadiniin yihiin waxa weey waxay u hadli waayeen shaqada horta kaligood ma iska malaha waa marka koowaad hadda fiiri waa arintan habar yar waa arin macnaha wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka arrimaha dibadda in laga hadlo u baahan horta waa marka koowaad waxaan leenahay guddi xuduudaad baan leenahay wixii haykal dawladeed baa jira marka iyaga fursadooda soo meerto oo soo gaarto way hadlayaan waa qasab laakiin dad baa uga habboon marka hore oo jaranjartaan inay shaqadan qaybta inta hoose soo qabtaan laga rabaa wixii ayagu ay meesha soo gaarsiiyaan ama inay xal ku soo dhamaato markay meesha xalkii ugu dambeysay ay gaarto ayagu leeyihiin laakiin hawsha shaqo walba ayagu hadday istaagaan dee macnaha dalka shaqaale kale dee looma baahnaa la iska faayir gareeyo dadka kale oo dhan dee runta taa weeye laakiin hadday dadku dawlad yihiin oo macnaha bitoon ilaa meesha hore wada shaqaynayaan waa loo kaadinaya qolo walba shaqada la xubinta dad baa kale oo kaga habboon qoladaasi markay kasoo natiijada ay ka keenaan yay noqonaysaa ama inay ka hadlaan ama inay ku filaato waa intaa un weeyaan laakiin tallaabo kasta oo dhacda ayagu inay ka hadlaan xaq maahan
والله معنا أبايو كلنا آدنا والله إبراهيم ها إبراهيم وارنتي سواها ويان وحير أنتي هي وحاس هي بالعنقة على هبة سيستو أنتي شرير ها سانكدوديا وقبلها أنا فلفول لا دول كان قاضي لها nimankii madaxa sankii indhaha duubnaa intay carrada ku jireen aan la kala gaabin sankadhuudhi ma soo geli jirin gado iyo badaxaawo run baa lagu sheegaya kala wiiqnida la wiiqay bay arkeen ma fahante sankadhuudhi ma soo geli jirin sankadhuudhi ma soo geli jirin sankadhuudhi lama bilqaysan jirinin waxaad leedahay al-shabaab baa macnaha u fiicnaa miyaad leedahay al-shabaab baa u fiicnaa al-shabaab baa u fiicnaa because waayo maanta midda lagu hayo laguma hayn jirin gado laguma hayn jirinin laakiin maanta markii la kala wiiqay waxaasaa sankadhuudhi sameeyey ma laba cadow baa isu kaa dhaantay ayagana waa ku dili jireen kuwaana waa ku dilahayaan ma fahan horta ha ahaadeen hadda kan annaga waa naqaanaa cadowgiisa oo waa ninkaas sankadhuudhiga kenyaanka ma garad laakiin wiilka soomaaliyeed oo inta ismiino isku soo xiro 200 oo hooyo iyo caruura gubaya annaga waxaan ku tilmaana ma naqaano runta markaan kuu sheego waa fikir aad u qaldan waa fikir aad u xun ma garatay garanti uma haystaan meeshaad u maleegaysa inaad la herayso 100 jeer hadda dowladdan say u dhalatay waa u fiirsanayay waxaa la wixii qarax ahaa say dowladda u dhalatay wallaahi se maalinna la helin meel dowladda ah wax kalena ma ahane hogaamiyaasha daacada anigu saan qabo waa aniga fikirkayga anigu saan aaminsanahay ilaahay baa la jira nimankaas sababtoo qofka binaadamka hadduu daacad yahay ilaahay adigu maarata waxaad doonta dhagarta iyo waxaad doonta walaaq laakiin ilaahay baa kuu jooga ilaahay baana kaa weyn ilaahay baana ku abuurtay kaad u maleegaysid iyo adiga maleegayana ilaahay baa idiin dhexeeya ma garad marka anigu waxaan u arkay dad macnaha nadiif ah oo daacad hogaamiyaal daacada ilaahay inuuna siiyey laakiin masiibo alla masiibaa ku meersan odagaana horta aan soo dhexgeliyo aan awal kamaba hadlayna igumana jira ajendahe jawaari waxaan aaminsanahay musuq maasuq number 1 inuu yahay anigu kolley shaqsigayga horena waa u sheegay maxaa yeelay sanadkii 6 baa ugu dhashay dastuurka intuusan macnaha kala goynin oo iman dastuur uusan meel saarin waddanan dastuur lahayn wax lagu haga lama yaqaano meel loo qaadana lama yaqaano marka waxa weeye dadkan wixii waxaanoo dhan macnaha kala saari lahaa oo macnaha maxay tahay cadowga lagula xisaabtami lahaa oo maarata ajenda lagu soo kala saari lahaa oo macnaha wax tarka ahaa waa sharci wadda aan sharci lahayn dee si u dhaqmayo waa madax iyo mijo ma leh ma garatay sidaa daraaddeed ragaadiska uu ragaadinayo waxaana maqlay inuu ahaa dadkii maaragtay ka soo shaqaynayo markii horeba maaragtay hay-adaha sharci dejinta la shaqaynayay oo inta Ethiopia sharciga la geeyay dastuurka in midba midka inuu ka hormaarayo ka soo dhigay si macnaha uusan oran war waxaan anaga kuma shaqayn karno noocaan ma nihin macnaha asagii oo laftigiisa marka ka samaystay baras yar oo meesha asaga uu dictator ku shaqaysto marka waxaasna wax shaqaynaya ma aha kuwa maaragtay anigu waxaan dhihi lahaa kuwa macaaradka horta xildhibaanada naloo soo calaamadeeyaba walaahi bilaa talaahi kuwa nadiifkaayo waxaan ka baryaynaa kuwa macaaradka inaad noo soo calaamaysaan dadweynaha daanahay anagu talan annagaa tala galayne annagaa farsamo kala raadsanayne sababta waa nadayn waaye xildhibaanada waa 3 nooc anaa kuu sheegaye xildhibaanadu waa macaarad iyo muxaafad iyo mid la dhaho ku shubo wiil baa soo qoraysa raallan ka dhex galay wiil baa soo qolaya al-shabaab baa kaga baqaya wallahi al-shabaab laga baqay al-shabaab ayaga hubeynaya kitaab jaamaca ayaga man ka fariisan weyn al-shabaab Ethiopia iyo Kenya laftigooda kulli waa wada hubeeyaan waana la siiyaa meesh mandaqadan inay sadegin baa loogu talagalay wixii aqli leh al-shabaab baa afarta wiil oo yar baa kaligood Soomaalida ka xog badan aqliga saliimka ha gale no laba looguma talagelin imaaraad baa hubka u keenaysa dooyo badaha looga soo dejiyaa imaaraad baa keenaysa Ethiopia keenaysa qod walba wax waa qawda maqashi waxna ha u qaban wallahi billahi talaahan aysa daacad ka ahayn oo aan maarata Soomaali loogu talagelin inay maarata ka maxay xorowdo oo aan Soomaali loogu talagelin runta marka la isu sheego markii halkaan adigana halkaan lagu dhibay xogaa qoriga iskaga celi baa lagu dhib 4 xabadood markaa ridto 7 xabadood baa loo soo dhiibaya ayagiina haye maanta ridanaysa bari bay ku ridanayaan maanta ridanaysa bari waa laba jir sidaas sheekadana waxay rabaan fiiha maanta inay ku dhamaato oo Soomaali lagu qaato oo qolaba meel goosato oo qolaba barbara goosato oo qolaba maartay baraxa goosato oo qolaba badda goosato war ilaahay aan ka baqro Soomaaliya sida Suudaan war sida aan Suudaan qayra iyo farmaajo maxay indhiina tusay war arka qayra fijaaj wadanka kaama xigo meel samay kugu hogaamiyaal way waan hogaamiyaal daacada ee la imaado idinku dadkii la hogaamin lahaa noqdo oo macquulka ahaa maya
معارض يا معدرات يا لقوية مد عشور دي جواري أبايو هاي أبايو جواري ها جواري وحلي ناقدي لقرمون عندكم مرقليد جواري شرعي وكدر دريي أو ديني إنه هروس عوصيد وروا إنه قيل وهايستو ميسكو هوسي سو قشد اللحسن وكويستي horta saaka asaga ku baxay walxamdulillaah xaqul waa cajiib maysa kastaba u soo daahay maalin buu imaanaya ilaahay baan ku dhaartay wixii wadanka lagu goynay ilaahay asaga u jeeda maalin buu ku baxaya asagii baana ku baxay wadanka nala wadaaga oo nala goynay adaa u jeeda rabbi raxmaanow ilaahu naga qabo wuuna ku baxay wuuna ku baxaya wuu ku baxay waana ka baxaya laakiin waxaan la yaabanahay Soomaaliya hadday israaci weydo oo jooji weydo qabiil iyo qurun cid kale iska dhaafay dalkii Sacuudiga islaamnimada sheeganaya qabti xarabka ay muslimada loo doonay islaamnimada laga sugayay ayaa waxay kula tala gashay inay Ethiopia iyo Kenya inta noo qaybiso annagoo meelan jirin naga soo saarto ayadoo ka duulaysa shidaalka naga in la soo saaro shidaalka raala waxa soo qaray yari baa wuxuu soo qaray khayr ma waxa wuxuu yiri hadda ka halagu ugu eeday hadda ka hor lagu eedeeyo moogta al-shabaab loo shaqeynay war qofku al-shabaab waxa ku la shaqeey waa yimaadeen wasiiradeedii baa yimid iska daadu min lagu tuhmaayay iska daayay habar yar kuwii xukumay oo looradahay hogaamiyaashoodii baa ayaa yimid oo ka tanaasul karo qofka waxa waad gali kartaa waad ka tanaasul kartaa muhiimadu waa intaas laakiin waxa fikir qaldan waliga ku taagno oo ku dhimo umadna ku halaag taas xun oo laga waantoobin ma qaldama waa ilaahay madax baa qaldamaysa dad baa qaldamaya fikir baa mar kula fiicnaanaya kiibaa kula xumaanaya that's fine no problem laakiin muhiimadu waxa weeye war qofku khaladkiisa ma fahmay war qofku ma ka waantoobay war horay ma uga socdo intaasaa muhiimadu tahay Soomaali haddaan dib isugu noqono wixii khaladaad ahaa weligood kala biskoon mayno marka waxaa fiican hore in looga socdo marka anagu maantayto waxaan aaminsanahay farmaajo iyo khayr inaan daba taagnaan karo dad la isku halayn karo inay yihiin oo meesha nagu furaan aan kalsooni ku qabi karaan anigu aaminsanahay shakhsiyan iyo qofka aqliga laba damiirka la hodhan wuxuu soortan cunaysan saankeeda aqaana waxa kaaga filan war tallaabooyinka ay qaadeen kaliya fiiri war inta wiil xabsiga iyo inta adduunka dhan ay inta mareen xabsida ka soo wada daayeen fiiri maalma diyaarad ka soo dejinayeen war maxay bad hawadii bay keeneen war maxay ahayto masaakiin bay gargaarahayaan war dad adigu wanaag u shaqeeyo ardadii masaakiinta tahriibaysa shaqo abuur u sameeyeen cuuriyaamadii masaakiintii ba aruuriyeen or yaa ilaahay ma laga baqaya war ilaahay ma laga baqaya maya sideedaba wixii alfa lahaa baa la rabaa wixii alfa lahaa baa la rabaa curatay wixii alfa lahaa la dadku waa xasan waa curatay horta wixii alfa lahaa la keenay Soomaalida wallaahi billahi tallah Soomaalida horta waxay naar ku galaysaa xasadnimo bay naar ku galaysaa Soomaali ma ha xasadnimo bay naar ku galaysaa haddaan u fiirsado sida odageen maanta ku sheegayay after arigu asdirna wuxuu ku jawaab wuxuu yiri khayre wuxuu soo saxiixay buu yiri imaaraadka kabani wuxuu kala soo saxiixday buu yiri 12 kilomitir badaha Soomaaliya in aan Soomaalidu maamuli karin oo aan badda saxiixay ma nadeyn karaan anagoo dhan hana gaday anaga raali ka badda boosaasiya garacad 12 kilomitir buu wuxuu yiri laba soo gali karo Soomaaliya daaminis wuxuu yiri wuxuu ka soo gatay yiri oo ka soo saxiixday kabani ka socda qadar bal fiiriya waxaasna sama oil buu ka soo saxiixday yiri inuu leeshii wuxuu baloodaga reeda sama oil baa tiri kulligeed ha wada siiya haduu rabo bilaadanka waxa fiican hadduu dhibaray wuxuu raali ku yahay inuu dhintaa corruptionka odagaas ka hadlaya haddaad arki lahayd qaracan baad u dhiman lahayd waxaa is leedahay haddaad ninkaa dhagayso absolutely khayr dalkii oo dhan wuu iibsada ka dhacaysa dalkii oo dhan waxba yayna khalkhalin khayr anaga khayrkiisa alla na tuso shartiisa alla nama tusin murana ma rabno bilaadanka markaad horta fiiray aduu qofka markuu tallaabada hore qaado iyo midda labaad hadduu khayrkiisa kuu soo iftiimo yaan waligaa lagu khalkhalinin ma maqlaysaa mayo aniga ima khalkhalinahayaane meelis waxaan kaaga wadaa nacaybka halkaas gaarahaya waxa weeyaan maadaamusan khayra ahay nin gaajo ah nin milyandheer ah nin lacag haystay nin kabani lahaa nin maalin cad kabanigiisa intuu saxiixay oo ka baxay shaqada Soomaaliya qof waa xumaato ninkaas waxaysan arag baan kuu sheegi waxaysan dadkaani arag dawladda si aad barra u dambaysay nin inta soo labiso dhalinyaro ah oo caafimaad qaba oo niyad si niyada dalkiisa isagu sacrifice ugu shaqeeyo oo macnaha
oo maaragtay u hura naftiisa iyo maalkiisa horta dowladdaasa u dambeysay ma maqlaysaa hadda macaan marka xalana ninka laga sheekaynayo xalana aan soo xasuustaa dhiigu igu karayo waxa meeshii dhex degan haddeer ma maqlaysaa macnaha wadannimadiiba 30 sano dhammaatay wadannimada dadka ka dhimatay ma garad qofkii wadani ahaana ciil buu u dhintay dhiikar baa ku dhacay wuuba dhintay ciil buu la dhintay ma fahamta caada qaate dhaashan oo 2-4 jeeb oo taas oo saa u kala dulaalaha bas ku soo haray wadankii marka labadaa nin oo dhalinyarada ah oo caafimaadka qabo gaajada aan ahayn oo adduunyada maaragtay horu martay maxay tahay noloshooda ku soo qaatay oo ciil iyo carado ka batay waxa Soomaaliya ka socda inay bal wax ka bedelaan oo dalkooda sida u dhaamaan oo maatadooda silicsan sida u dhaamaan ma maqlaysaa waxsan ma arki marka waxsan miyaa arki karaan ilaa wixii xumaan bay ku shaqo leeyihiin waxsan baa dhibaya marka samaantaa dhibaysa nabadaa dhibaysa horumarkaa dhibaya khayra iyo farmaajo ceeb male waxba yaan la murmin khayra geed dheer iyo geed gaabanba Soomaaliba u fuushanaa xabiskii ugu horreeyay Itoobiya ka soo daayay inta tagay ugu horreeyay maxaabiista u horreeyay Itoobiya waa ka soo daayay muran ma rabno wiilkayga xabsiga ku jira anagu hooyaan nahay kan soo daynaya dan noogu jirtaa kan marta shaqada u abuuraya oo intuu naga tahriib lahaa baa dan noogu jirtaa kan nabadgeli war waxba anaga waxbarashada ka fakaraya dan noogu jirtaa waxba yay hadda anaga noo durbaantumin khayra cirka anaga anaga rabnay hana daayaan shacabka haddaan nahay khayra iyo farmaajo anaga rabna mucaarada ma nadayn karaa dalkii waa hoogay idinkaa hoogoo ba'ay oo hoogoo ba'ayna dhaafa ilaahay baa idin baryay si degdeg allah nooga kii qabtee marka reality waxa weeye dadka xun qabyaalad bay rabaan dadka inay ku soo kuxiyaan maxay too hadda waxbay soo faarfaarayaan hadda maaragtay qofkii bay rabaan inay tasuus kaaga furaan annaga waxaanu har dharaar bayno dowladdan waa dharaar maalin weeye maalin habeen maaha mugdina kuma jirto marka ninkii waxay dadkana og yihiin ma taqaanaa nimankan hadda siyaasadda ku soo jiro mucaaradka ah waxay og yihiin wax rajaahoo dambe inaysan u oolin ay fursad dambe u furayn bay og yihiin dalku inay hore u socday u og jeedaan dad dhalinyaro oo shaqaynayo oo maaragta firfircoon oo ayaga maaragta dalkooda wax u soo qabtay ayuu bari la dooranaya og yihiin ma maqlaysaa kuwa maaragta hadda ay iyaga la shaqaynaya iyaga ku dayanaya ma ogtahay khayra iyo farmaajo iyo xukuumaddan iyo bayle iyo ragga ay la shaqay dadka dhalinyarada la shaqaynaysa dadkaana macnaha role model u ah oo ay ka macnaha ku dayanayaan kan maaliyadda ka shaqaynaya sida wax loo ilaalinayo baranaya hantida qaranka loo life baan ku jira maxay ku noo soo hay soo wicin ana hooyo life markaan ka baxaan ismahan carabi ku soo wacaya inaad arab sharafay life baan ku jira ii kaadi marka waaban isaga baxaya waa maqribki waa taagani saaxiib dood joogay maqribki waa taagan kowdhe marka waxa weeye dadkani macnaha dad waxaa hadda u soo baxay hoggaan roob model ay hoggaan corruption oo ay arki jireen moogtaan markaas nin walba dhac iyo boob asba ku ababay laakiin hadda ragga majaraha u qabtay maasha Allah tabaaraka xukuumadani waa rag hufan oo nadiif ah oo wadaniyiin ah oo daacada marka dhalinyarada maanta ka hoos shaqaynaysa waa leaderka waa mustaqbalka barito hogaamiyaasha baritoola wey marka nimanka waxba nimanka maafiyada oo warloryaasha iyo maxay tahay caloosha shaqaystayaasha macnaha waxba inaysan barito u banaanay way og yihiin maya waa waxay isleeyihiin hadday jilicsan tahay qaba dabada yay kicin dabada qaba yay kicin dabada qaba yay kicin yay ku jiraan insha allahu tacaala dabana ma qabanayaan mana joogsan doonto horayna u soconaysaa horayna u ruqaansanaysaa si nabadgelyo leh ilaahay idankiisa oo horumar leh marka shacabka Soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa inay dawladooda garab istaagaan qabyaaladan inay iska iloobaan meel ay joogaanba midnimada Soomaaliya inay ka shaqeeyaan qof kasta oo Soomaaliya waajib ay ku tahay midnimada inuu ka shaqeeyo hawareer maxaan ka hadlaynaa dab ahayn Ibraahimow ma su'aal la isweydiiyo ma xume Ibraahimow hawareer waxaan ku weydiiyay maxaan ka hadlaynaa dab ahayn bal soo sheeg waxa aan ka hadlaynaa dab ahayn eraya badan baan ka hadalnay keebaan dab ahayn oo aan ka hadlin bal soo cadee bal aan kaaga jawaabnay in wax la isweydiiyo ma xume maadaama aadan caytamina su'aalna weydiisay waa kaaga jawaabaynaa bal waxa saxda ah oo aad qabtay in kasta waqtiguna nagu dhamaaday bal soo sheeg intuu wiilkaas saasha ka soo jawaabayo waxaan ku weydiinaa hinday aniga hadday anigu fikrad aan soo jeediyo adiga say kula tahayna ay sheegtay inta nagula jirtana aan wax ka weydiiyo aniga reality waxaana qabaa ragga Soomaaliyeed ma quraan bay u baahan yihiin mana quraan saari karno ma fahanti quraan saar waa ka badan yihiin quraan saar waa ka badan ma quraan saar karno guriga ma wada deeqo markaan u fiirsanana waxaana kala dilaya waa ragga Soomaaliyeed oo waliba dhalinyarada ku jirinin ayaana kala geynaya ma fahanti dumar wax dhacay ama wax dilay ama wax kufsaday lama hayo ma fahanti
waxa wax dilay oo wax dhacay oo wax kufsaday waa rag kii caqliyaysto xoogaystana waxay ku koriyaan dhaqan xumada ay ku dhaqmayaan dhaqankaas ku sii qaataa labada dhinac hal nin guran dheelmay dhinacna uma fiyoobaa la yiri waxa weeyaan gabar Soomaali dhinacna uma fiyooba dhinac nin uma fiyooba waa ku agoontoobaysaa dhinac wiil uma fiicina waa ku gablamaysaa caloosheed iyo dabadeeda uma nasna oo waxa weeyaan 10 cunug bay dhalaysaa ma fahante صح ayadoon waygi iyo rajada iyo riyada ay kala hayna ama way ka gablamaysaa ama asay bay ka qaadaysaa waa sax mid dalka kaliya ku kooban xataa maaha dal iyo dabadba shalay waad arkaysa wiil yar baa la dhex yeelo tooray lagu dilay oo barqadii cad oo subaxnimo ah meel walba silcada Soomaali iga dayay maalin kasta saasay u gablamahayaan maalin kastana saasay u silcahayaan marka ma kula tahay gabdhaha Soomaaliyeed marka fiirsato ruuxa maxaa ka qaldan baad nimankan isu arka ayagu kaliya isu muuqda aan waxaan ba arkaynin ruuxa maxaa ka qaldan baad ruuxa isbitaal in la geeyo wallahi billahi tallahi nimankan waxay u baahan yihiin kulligood in la geeyo isbitaal counseling loogu sameeyo therapy loo sameeyo meel lagu xareeyo oo jeel macna caafimaadkooda lagu baaro lagu hayo u baahan yihiin baan ku dhaartay ilaahay baan ku dhaartay nimankaas walada qaba u qabta inay xogaamin karaan dad yihiin maqaarka kuwa dad maskixiin wada xanuunsan marka therapy ba u baahan yihiin waxaan ma xogaamin karaa marka nimanka dhowrka qof oo nadiifka hadda hogaanka noo qabtay waxay u baahan yihiin waa garab istaaga balaaya ku heeraarsan shacab ahaan loo garab istaaga weeye ciidankeena inaan dhisano way maqribkii waa soo galay waa asaasaan isku macsalaamaynaynaa iimaanka allah nagu sugo Soomaaliya iimaanka allah ku soo cesho aan isu ducaynay Soomaaliya iimaanka allah ku soo cesho isyeedaynay qabyaalad dhahnay waxba tari weyday isdilay waxba lagu kala adkaan waa ilaahay iimaanka aniga kallay hadii wax layga maqlo waxaan dhihi lahaa gabdhaha Soomaaliyeed ka tashada calanka aad nin qabqablaa u ruuxaysaan adinku isu ruuxa oo dantiina ka raacda ee ka hara nin qabiila iyo nin qabqablaa ka hara ma fahantay kii maxaa haddaan maanta maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo khayra dan ku jirin oo aysan dan wadin shakhsi ahaan aniga waxaan diyaar u ahay in gorbarqaa lagu bannaan baxo haddaan danteena ka dhex arki weyno waa qasab yaaba baryayaba annaga doorasho rabne noo daayo waxaan ka waayay mucaarad waxaan ka waayay ma taqaanaa war annagoo shacaba khayra iyo Farmaajo idinku dhexdeena ka baxa annaga indhahayaga ku arkay indhahan ku dooranay iyo danteena shan shala uga dhex aragnay iyo shan shala u dooranay annaga bari isaga cayrinay idinkuma noo kaadin kartaa dhexdeena ka baxa mucaarado ilaa adii alla ya dhexdeena ka baxa shacabka iyo dawladda dhexdooda ka baxa annaga dawladda dooranay maxamed Cabdullaahi Farmaajo allah noo xifdi annaga dooranay khayray wasiirka iyo ra'iisul wasaaraha annaga jecelo dooranay madaxweynaha ilaah noogu soo sababay nadaaya annaga rabna xukuumadeena annaga asaguna xukuumad minoo dalbay khayr qabta oo dadaalahayo ma sha Allah madaala iyo midaya annaga dalbanayna daaya allina haduu absolutely Ibrahim guriga ka soo toostay Allah hagaajiyo abaryar Allah hagaajiyo guriga ka soo toostay kowde maxamuudow don't worry waxa weeyaan qof walba fikradiisa iyo aqligiisa uu dhiban karaa wiilkan muu caytamin laakiin wuxuu ka hadlay Ibrahim ma caytamin laakiin waa hadda uu ka hadlay marka waxa soo guriga ka soo maqashay waxa ka maqan horta sidoo qofku inuu isbedeli karo inuu maanta fakarkan watay barina uu tanasuli karo fakarkan qaadan karo taas yaaba mar walba soo maaragtay al-shabaab hogaamiyaashooda inay soo abar yar soo wada dhiibeen oo ka tanasuleen bini aadanku wuu fakarayaa waxbuu ku jiraa mar maxaalad uu soo fakarayn buu ku jiraayo maskaxdiisu meel function waxbay maara focus garaynaysaa marna qofku inta fariisto fakaraa ma garata wixii buu wadaa natiija ka soo bixi waysa qofku waa dib u fakaraa marka sidaa daraadeed habar yarow maxay ahayto ilaahay adigana qalbigaaga ha hagaajiyo anaga maqribkii baa noo hayo oo maqribkii baa noo soo galay waan isaga baxaynaa live-ka habar yar Soomaali meel ay joogto Allah hinday intaadan ka bixin adoo raalli hal eray baan ku leeyahay waxaan u sheegayaa reer balad xaawo waa dardaar yar baan siinayaa waxaan ku xasanayaa fadlan waxaan حاو عيسى واكو أركا إن هذا عليكم السلام قردن بعد سوق شهد دان كبح رباي وحاوي مخرب كيوان معناه نقول سوق له إنه وعاد بنو سوق دوت سوال دوت شو إن هذا مركلان قبض دونا إن شاء الله دوران ونوصي سعون دوران مخرب كيوان هي ده فرل باين هي ثلاث مركز خلاص مقلد دونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين
inuu finish